mana qurux badna hablaha in la ceebeeyo mana qurux badna qarad dhacay inaad ku sii taagnaato ee wax qurux badan waad qaldami kartaa bashar baa tahay bili aadan baa tahay balse inaad qaradkaaga aad gashay aad dib ka saxdo ama aad gadaal aad ka saxdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qaaliga gudiga dibad meel kasta adduunka dacaladiisa aad ka joogtaan ku soo dhawaada channelka waa channelkeeni subscribe saar kambalaalkana fursaad mar walba aad noola socotaan waa hagaag baryahan silfar xagga daba lagu soo dhajisanay leey boqolkii kun baan gaarnay baa baryahan aad u badatay waxaan leeyahay horta intii gaadhay dhamaantii baan leeyahay hambaliyo barbaarta media ugu dambeysay ayaguna 100 kun gaadhay iyagana oo hambaleynaya tolow team hala abuur awil barna goormeeyaguna 100 kun gaadhi doona kulli asxaabta in badan waa haya inta naga dhimamna waxaan filayaa insha Allah cidnayna ma maqnaa ceelnayna ma qodne Soomaali Maxamed bayna maqan adiguna dad nagu cusub tahay nagu caawi si aan 100 kun u gaadhno waa hagaag muuqaalkana share gareeyo habeenku ugu horeeyay wax share gareeyo waa yahay markay noo share gareeyo muuqaalka caaw waxay noo waday runtii arin media aad u qabsatay arintaas waxay ka hadlaysaa xalayna waan ka hadlay laakiin xalay waan yara jacburiyay oo arinta Maxamed BK iyo waxaan ka hadlayay farxiye ka yeeray balse caaw way ka duwan tahay sheekadu sidii hore soona dhawaadaan leeyahay warbixinta iyo hadalka wuxuu kii hore kaga duwan yahay saanidii la wadaago waa hagaag wax jirtay hees ay lahayd nacasiyo qarmuunka duliyahu nin raga ku mooday inkastoo teeriyadu ay cay ahaayeen oo aanay de amaan ahayn eriya cayo caadiya ay ahaayeen heestaas waxa qaaday ama eriyada ku luuqeynayay fanaand laado farxiya kabayare hadaba eriyada ay u qaaday balse yey ku socotaa waxay ku socotaa eriyadan oo ay u qaaday ninka la yiraahdo Cabdinaasir Soola oo runtii waa macallin xagga AT-ga u dhiga arday badan iyo dhalinyaro badan san xogta ku soo ogaaday oo fara badan waana ninka ugu horeeya xagga AT-manka ama AT-ga ugu horeeya xagga bulshada Soomaaliyeed si fiican baa loo wada garanaya sayla tahay si kastoo ay haataba wax jirta inan iyaduna ka cabanaysa oo le wiil haysata oo taagan wiilka isaga ayaa dhalay hadallo coda oo isku soo duubeen oo runtii u soo duubtayna way jiraan oo ay ku sheegaysay isaga oo ilmaha ka dhalay eriyadana cid u qaasaf farxiye kabeera waa isaga oo ay leedahay nacasiyo qarmuunka akunaago biyo nin reegan ku mooday arinta kama hadlin isagu waxa dalaana kama oranin xaqiisa laakiinse waxa arinta ka hadlay ama arinta ka hadashay inantii hawsha iyo dhibtu ay ku dhacday ee ilmaha u dhashay ilmahaasi waa wiil taadiisan ku qiyaasay sanad iyo 2 bilood ilaa sanad iyo bil meelaha waa runtii waa wiil roon mana qurux badna horta oo badan in la inkiro mana qurux badna hablaha in la ceebeeyo mana qurux badna qarad dhacay inaad ku sii taagnaato ee wax qurux badan waad qaldami kartaa bashar baa tahay bili aadan baa tahay balse inaad qaradkaaga aad gashay aad dib ka saxdo ama aad gadaal aad ka saxdo Cabdinaasir sidoo kale waa siyaasi dadka qaar waxay u yaqaanaan siyaasi yahay oo xagga siyaasadda ay u yaqaanaan dadka qaarna xagga AT-ga ay u yaqaanaan oo macallin oo ka yahay si kastoo ay haataba Cabdinaasir hawshaasi dhakadiisa ay saaran tahay hawshaasina isaga ay waafaqdaa sidoo kale Cabdinaasir waa qof runtii bulshada magac ku dhaxlay oo maanta la wada yaqaano kuna sugan Ingiriiska ma aha qof runtii deys qarin karaya ama qof ay hawshiisu qarsoomi karayso hadii ay jirto hadii aanay jirinna ma aha qof ay runtiisu ay qarsoomayso balse ismalihi anigu inaan Soomaaliyeed oo ilmo dhan wadata oo naf nool wadata ayaa qof been ka sheegi karaysa ama qof yara dhaleecayn karaysa arintaasi hadii ay wax ka jiraan iyo hadaan wax ka jirinba wixii jira cakaaro iman doona kulli dadku in badan waxay isweydiinayeen heestani iyo ku socota aniga laftigaygu waxaan isweydiinayay eriyadan iyo ku socdaan balse waan soo ogaaday cid ay ku socdaan iyo cid ay runtii uga gol leedahay farxiye kabeere sidoo kale ayada laftigeedu ma ay shaacinin ama ma ay sheegin qofka ay ku wado eriyada ama qofka eriyadu ay quseeyaan iyo qisadu sida ay tahay bal waxaan la wadaagayaa inantaas oo la wareysanayo oo ay wareysanayso inan runtii laftigeedu live ka soo gasha xagga Facebook bal arinta inanta laga wareystay iyo sidii inantaas warbixinta uga dhiibtay bal hadda muuqaalkan ila yara dhugtay بالح ما بلاسينكيga blasirki xamdaan baad sheegaysay hadad hawadayda soo gashid ballan waxaan kugu qaaday inaan midi ku geliyo hadda Cabdinaasir oo adigoo nool adduunyada ku gabi waayo ilma xaraamad baan sadarkaysan muuqaalka wad soo aragteen horta waxa ayaan daraa in Soomaaliyeed laga gooysiiyo ama in Soomaaliyeed ay ooydo ay media ka dhaxooydo
bili aadan weeye inantu way qaldami kartaa inankuna wuu qaldami karaa rag iyo dumarna qaladka loo sameeyaa waana la qaldami karaa bili aadan baa qaldama laakiinse waxa adduunka ugu daran qof qaladkiisa ama dhibtii soo gaadhay ka soo kaban waaya ee iska niyad jaba ee isdhiiba nolosha la isma dhiibo intaad nooshahay waa la dhaqaaqaa guushana waad gaadhi inanta horta waxaan leenahay ilaahay ku asturo ceebtada la asturo hablaha Soomaaliyeed oo dhanna alle ceebtooda ha asturo meel kasta ay joogaanba habluhu waa hableeni ceelna uma qodna cidna uma maqna ayaa la oran jiray marka hableena Soomaaliyeed waxa filaya wiilashii Soomaaliyeed iska firadhiibeen waa sababaha keenaysa inay ragga iska firadhiyo waxa weey markuu qof ninkii ragga ah inantii ku qaldamo ee uu qalad ka galo ee uu qaladkiisa wiliba ku sii taagnaado war dumarkeeni waa hooyadeen waa walaasheen mar wayna dhalatay mar waynu dhalnay waxa qurux badan waad ku qaldami kartaa oo kugu qaldami kartaa marka kugu qaldanto waxa qurux badan aad dul qaadato marka aad ku qaldantana waxa qurux badan qaladkaaga inaad qaadato oo qoorta u ridato waa sida aniga ila tahay ama sida anigu aan jeclaan lahaa Soomaali Maxamed idinkan waxaan idin codsanayaa arintaasi ayaan soo ogaaday horta hawshaasina saasay u dhacday farxiyo ka bayaarana kulli hawsheeda iyadu may cadaysanin balse yaanay cadaysanin waa la soo ogaaday si kasta ay haataba dad badan inay fahansanayeen baa laga yaabaa ama ay ogaadeen arintaasi ama cid aan ogeyn imikana warbixinta ay runtii imika ogaadeen aad iyo baa u mahadsantiin arinta iyo fikirka aad ka qabtaan iyo runtii waxaad ka aaminsantiin Cabdiraxmaan iyo waxaad ka aaminsantiin intan hadalka ay ka cabanayso ee ilmaha sidata bal hawshaas waxaad ka aaminsantiin fikirkiina iyo aragtidiina xagga hoose ayaad nugula wadaagi doontaa waa inoo kulati dambe iyo ismaqal dambe oo xiiso leh heesta runtii ay qaadayso ama eriyada ay farxiyo ka beer qaadayso wiilka laxanka saaray hadeen idin sheego waxa la yiraahdaa isagana karaar xareed karaar calaashan hebel uu taraaray mise هاي أدو أريد هران شعرهاي مركا واحد هذا كرار حريت أيرا هذا ويل كلحن كوساري ويه نرجعن كمودة ناس يهو نصيبك أكون ناقب بيو كل نكى هبلها الصوماليات كعيارنا وحلنا هاي نرجع بماها نكى هوين كتاك صدا وإنه يقول تدبي اسمه غلط دبي وحيسله يبغى مغلق كحجوين كوكلنا واسدا إياه نولي كلانته Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you Please subscribe channel Kusopir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you
please subscribe channel kusoo biir channelka like-tana nagu dhiirigeli share garee thanks please subscribe channel kusoo biir channelka like-tana nagu dhiirigeli share garee thanks please subscribe channel kusoo biir channelka like-tana nagu dhiirigeli share garee